ولا ليال دليرتان وشيء يا مكت war amnigu waa waxa ugu qaalisan ragayagii hore waan gaboonay bay dhalinyartaan sheegaya waa dhulka ilaashada magaaladan qiimo waxay ku leedahay aroosyada isdaba galaya rays tagaya sawt tagaya magaalada dhan buuxsamee baabuurta quruxda badan li waa nabadgelyo Soomaa wallahi waa taas qiimo badan maalintii baan xasuustaa magaalada la soo galay dagaalada xurubtiina soo dhaftay jaahiliga ahayd masaajidkan ku tukanayno daaradiisu masquul buu ahaa moogta دو مساعد كل مرة دار مسؤول أركان لتجي دارده لتجي كذا لتجي دارده ويدك ده هديم من بتقول لي وين مساعد ما نقرأ يو قيمة ما يلا نيو مسؤول بون نقرأ يا ولو حياة بقى تذكر مجالها أرد الشيء إيه هذا أنا لقرني إنه وحي وجهدان ومدو وانا قال لوجي يدا برواقة ده لوجي يدا ودن كوالا قيب قلا dadkan ilaahay meesha u dhigay wada walaalaha nabadgeliyada ee wada ilaahay oo ku maneystay muxaadadka riximka ee ilaahay meel fiican u dhigay ee khayrka ku jira maxaa ka maqan dadka hogaaminaya markay geelo waxa la yiraahdaa geela aarankiisu maxay ka durduriyay maxad malin baa la yiraahdaa muxuu ahaa kii kalena dadkii talooyinka qayb ku yeelan jiray markay ummadda cabsi galiyaan horta waxay nagu dhacday mashkiilada inaga nagu dhacday nin run ma sheegayo nin walba wuxuu ku leeyahay muxuu ahaa وسك أمسيهم هدي الله وضع أمس الشركة وحوين ولا وضع قرية وحلا الشيطان الآخر سحلا ده وقفك أنا مش حق الشيء ويموت ومركز وراك وطالم أموقف طالم أتك أمسطو حكا قلت هذا حكا قلت النبي يقول حشاي عليه الصلاة والسلام تذكر دوني بيقول سارين هم بيقول دوني ده ودور خم بيلاد سوما خانم بيلاد هاي دوني دي قال واحد فوشن تاي بيقول حقه وسق قالنا حق السريع بيونا حق السريع يلين بودي قال دي حقه وصفر دي أيها واحد هذين بودي ورمر الدين نصيب كأني حقه وصان هلاي دي حق السريع يين عندك بيها ودونني يين عندك كديبينه هالكم أنك طلوشنو حبض له حين تنكسرنو حاجة ما كعبنا وبدي ما كنا حجرنا إلينا إنك بيجوا دوبنا كويس سريع وحنا بيقولوا هدي قلنا كقبة ويدا بودي أرنتاس هلكوا جميعا لما هو ده دمنا يا سوما إلا قلنا دي حاجة سريع هدي سؤال ويدا ريا بيا حاجة مصود أنت حاجة وسهل تابنينا وميل بنكو تجرناي ويدا دمنا يا بودي هدي كقبتانا نجوا جميعا لما ولا بتبدأ يا بودي موت تذكرني ما أنتوا عجيب كنا قدين يعني لسكما بالشرط بلسكما شيء يا موت قفي كجرا خطأ أو دبات تفسمين يا أي هذا أنا يحمل لك قبلين موت للي محاك عقله بلك للي وس محاك عقله وحيابه أوصل لقوة يستأجر موت كازوا أصدائيو ريب النمئيو وحنا نقرني إنيو يعني ضدك كويس كأمس يوم والله قبصنا إيو وردتكم مركي أورون ويان قفك الرمت اللو شيء ويايو وناقل ما هلايو مقالة إلهي نقول من نسيت دقنا هي ده وحويان وحا كوجو نوا أمن جنة بتقليه ده موت حتى كمان تقضاي بريوح ليه هي وات شقتك يو حباط هاي لبوس ليه صوما رجال وود نولي ضد كانوا وحا أقول شر بدن أو أقول دبات بدن ضد ميل دقن أو ونالا أو نبتقليه كوجرا قفك ضبك الصراع ضبك قليه وضدك أديودك وشر بدن ويا واحد قران كانوا شيء قال الله لا قطاع طريق ما مغشين قطاع طريق وكو جدك قويه وكو ضدك عبسي قليه وكو ضدك خلخليه وضدك قرانك او شيء يودي وان قعمها iyo lugaha isweydaar loo gooyo moogta isweydaar laba shay bay kulmiyeen dadkii oo dilayaan iyo xooloogi qaadanayaan xoolaha muslimku xaraam bay ka yihiin diigooduna xaraam bay ka yihiin dardaarankii nabiga waxa kamid ah kaleey salaatu wasalaam xajjatul wadaa nabiga oo dardaarmay war diigiina xoolihiina yaana sharaftiina intaas oo dhan ba xaraam bay niga tahay ala falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib war hooy ha gaarsiyo buuri muxuu ahaa ninka jooga war ninka maqan ha gaarsiyo waa dardaarankii nabiga kaleey salaatu wasalaam ku saliya nabiga
allahuma salli wasallim wabaarik caleyh waar ninka joogaa ninka maqan ha gaadhsiiyo ayuu lahaa waa risaaladii damataa maanta ina soo gaadhay dhiigga islaamka waa xaaraan xoolooguna waa xaaraan in la cabsi geliyaana waa xaaraan sharafta qofka cirdigiisa meel laga dhaca waa xaaraan waxaasoo dhan ba maanta la xalaashaday dad baa ku macaashaya dad baa waxaa ka sheekeeya dadka nolosha ka dhacay ee ka saaqiday ayaa ka sheekeeya waxaa ummaddani waxay u baahan tahay nabadgelyo wallahi taasay u baahan tahay waxay u baahan tahay waddooyinka oo la hagaajiyo waa kaa la inoo hagaajiya lasii qurxiyo la weyneeyo masaajidadii baa fooqaq laga dhisaya waxaasoo dhan contributionka ummadda dadka magaalada degan baa yaa waxaa bixinaya shidaal ma haysano batrool ma haysano war magaaladan yaa laga aamusin kuwa meelaha ka sheekeynaya hebel bahalkan joogiyo hebel bahalkan jooga leh madaxa ha la soo gooyo diinteena islaamku maxay dhigaysaa waxay dhigaysaa marka taladiinnu buu yihi nebigu yihi alay slat slaam aada urursan tihiin eed wax isku raacsan tihiin eed nidaam leedihiin eed hoggaan leedihiin ee qof inuu yimaado buu ihi doonaya inuu ini kala kaxeeyo ha la dilo buu ihi mogta dadka waa dadka magaalada khalkhalni waa in wax laga qabto dhalinyartii waa la goray waad ogtiin habeenada waa la seexday soo ma waa nin maalin hore ini lahaa waa dadkan haddii saddex qaybood laba qaybood qayb la dilo laba qaybood hadhan waa nabadgelya lagu noolan lahaa magaalada hadday tahay 300 kun oo boqol inaga dhinta 200 kun oo seexda waa iska cibaadaysta 300 oo fasahaada ka darantay inuu mid iyo labaad ka hadlaysaan moogta meeshu nabadgelyo u baahan tahay iyo raganimo cawladay bay u baahan tahay waxa la maxaa la caananka yeelo maxaa la caananka yeebo reer ma doojiyo caananka yeebo reer ma doojiyo waa lay qabsani ma soconayso adduunyadu go'aan bay u baahan tahay go'aan xukuumaddu waxay mas'uul ka tahay ummaddan inay la badbaadiyo oo nin kasta oo magaaladan cabsi gelinaya la soo qabto oo la daldalo marta ma la sheegay dadka la qabto waa dadka in magaalada la ilaaliyo xagga la tagi magaalada xagga ka tagayna magaalo kala haysanaa hada waxa la yidhi dagaalku marka hore baa la yidhi shaacir baa wuxuu lahaa dagaalku marka hore buu yidhi waa inan yaro qurux badan oo aad wax u soo jiidata marka dambena wuxuu isku bedelaa buu yidhi islaan gabowday oo dee muxuu ahaa dhaqaaqilo ciradii oo dee fool cid kasta ka yaacayso alxarbu awala maa takuunu fatiya marka hore inan yaro qurux badan bay tahay dhagax tuurka yar iyo waxyaabaha iyo fadhaada iyo waa dhukan xoreynayna dhulka yar laga xoreynaya dhulka xorta ah sawka masaajiddu buuxaan sawka ganacsigu buuxa sawta dugsiyadu camiran boqol jamcad imsa jamcad yaa ku yeelo Soomaaliland sawka qalin jebinta maalin walba la tagayo nabadgelyo loo tagayo maxaad rabtaan dadku maxay rabaan warni ninka laga aamusan yahay ee la qarinayo ee meelaha jooga ee dadkan cabsi gelinaya waa in wax laga qabto wax reehebelnimo leeyahay ma jirto nin walba waxa reehebel u ah nabadgelyada Soomaa wallahi hurdada iyo reehebel noo ah marka meel iska seexato nabadgelya ee dalkaas ka seexato ee masaadka itikaafto ee seexato geedka aad seexato kaasa ku dhow tolka waa nabadgelyada magaaladan waxay u baahan tahay looma baahno fadha nabadgelyo loo baahan yahay nabadgelyo loo baahan yahay moogta ummadan waxay u baahan tahay ilaahay inay barido tira ilaahu noo dhamaystir baa la yiraahdaa wixii khayra ilaahu wixii khayra noo dhamaystir ilaahu wixii khayra noo dhamaystir baa la yiraahdaa war waxaan u baahannahay war magaaladan ilaahay ha noo hagaajiye dadka in la cabsi gelinin cabsi gelin looma baahno moogta haddaad cabsi geliso qof muslim ah oo uu seexan waayo adiga ilaahay kala xisaabtamaya moogta almu'minu laa yurawicu mu'minan qof islaama qof mu'minku mu'minka lama cabsi geliyo cabsi gelin ma cabsi geliyo nabadgelyadu waa wax qaalisa war ummaddeenu waxay u baahan tahay wanaagaas u baahan tahay war la soo wacdiyo kuwa dariiqa garamarsan ha la soo wacdiyo waxa loo sheego ha la yidhaahdo xagga wanaagga ha loogu soo baaqo wanaagga ha loo baaqo wallahi taasaan wax ku helaynaa nabadgelyo taasaan wax ku gaadhinaa ilaahayna ha inoo dhammaystiro waddankeena barwaaqadiisa allah inoo dhammaystiro roobkaa inoo shubaya baleeg iyo waxa dhiigga la daadinaya war bal bari waxa ka dhacaya dadka bari islanaya maxaa macadow kalaa war reehebelnimo la isku leynaya reehebelnimo halka reehebelnimo ma jirto innagu dadka hortiba jaamacadda camud markii la bilaabayey
intii qoriga la wasitay bay ahaydoo dadkii jaamacadda Camud waxay ahayd dadka laga dhigay qoriga qalin baa loogu bedelay waka qalinkii la wada qaatay ilaa Soomaaliland oo dhawakaas jaamacadda Camud baa ugu horeysay waa umul jaamacad baa la yiraahdaa umul baab iyada kow ka ahayd markii la bilaabay dad badan baa waxay yiraahdeen war waxaan isoo soconaysaa dhulka burbursan in yar baa lagu bilaabay qalinka loo dhiibay way socotay wata maanta nadarkaysa muxuu ahaa jaamacadiisa sayno yihiin kuwa jaamacadaha ka baxay meel walba jooga jaamacadaha Soomaaliland kuwa ka baxay meel walba joogaan dee qalinka maalinta loo dhiibay waxa la lahaa qoriga loogu bedelayay waxba usway haydoo waxay ahayd misaal bay ahayd example bay waxa la lahaa war yaani saa qalinka hal la qaatay tiba la wada qaatay sharafta iyo qiimaha saa qiimo leh moogta taasaa qiimo leh qalim adduunyada qalim baqaasa socda waddankan Itoobiya jaarkeena isbedelka imika ka dhacay qori lagu keenin isbedelka dee kacdoona jiray laakiin dad baa muxuu ahaa xidhiidhka iyo dad baa sameeyo waxba dadkii la barayo dadkii markay waxba bedelka inta la ka dhacay awoodda waxa inta bedelay waxa dictatorkii waxa soo dhan wax bedelay waa qalin buu ahaa tamaanta nabadgelyada xuduudana naga xidhnayd maanta toos baad u tagaysaa iska tagaysaa soo noqonaysaa balaayadii ma jirto moogta waa ka ilaahay ummadii walaalaha ka dhigay awal basaas bay ahayn laakiin wixii waa ka dhex baxay war adduunyada saa noqotay ee saa khayraadka u ballaadhay inagu yeenan weydaaranin moogta waxa la doqoni baa la yiri doogii abaar dhexdood bay caydhowdaa baa la dhahaa moogta adduunyadii oo dhan waxa dhulkii agteena iska dhigay oo istabihii wada dhigay ood ka soo noqonayso oo la wada muxuu ahaa la isku wada furay mandiqadan la isku wada furay kuwa maanta iyaguna ka sheekeynaya muxuu ahaa meelaha ka sheekeynaya muxuu ahaa la xoreynaya badha iyo kada hayaay ducaatu ila abwaab jahannama waxay noogu yeedhayaan albaabada jahannama inaan naarta la galo ugu yeedhayaan dadku inay burburaan oo jabaan cid kasta dawladda ayaa ka mas'uul ah hala taageero muxuu booliiskeenaas arruurta inoo kala celinaya dumarka ka soo kala qabanaya khamri baa magaalada la keenaa oo inta 700 oo cagadood baa magaalada ku gubnay waa dagaal kale la inagu wadaa khamrada ayaa loo keenaya dhalinyarta loo keenaya khamrida xashiishad baa jirta waa dagaal adduunyada lagu burburinayo khamrida inta laga loo keenaya dadkeena sida camarada masaajidada ayaa khamrida loo keenayo la keenaya dad baa waxa ka shaqeynaya kuwaas way la dagaalamayaan Soomaa waa kuwa ugu baahan dagaal ku qaadno kuwaas khamrida dagaalkeeda iyo xashiishada maandooriyaha dhan baa loo keenaya moogta dad baa ka ganacsanaya ilaahay oo muxuu ahaa khayrka ka qaaday ahlu shar baa ka shaqeysta waxa dagaalku way faribadan yihiin muqaadaraadkaasa inaan la dagaalana waajib inagu ah oo soo sheegtaan booliiska oo la qabataan oo khamrida la sheego oo baabuurta yar wada deehanay muxuu ahaa wada niqaab kale waxa la wada niqaabtay waxba ku wada dhex jira ko khayr iyo sharba wala saddex socda baabuurta marada lagu wada xidhay ma garanaysid dadkii baad nolo baabuur buu dhex jira sida gabdhii niqaabtay maxaad ka garanaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa war khayraadka ilaahay ina siiyay anu mahadnaqno la in shakartum la aziidanakum war magaalada aan ilaashano moogta xaafad loo ilaaliyo sida kale waa ka majaalis la isku tagay meel laga sheekeeyay magaalada nin walba dhankaaga ka ilaali ilaashano wayna wada leenahay salaada jumcada waxa loo imanaya waa nabadgelyada salaada waxa lagu soo noqonaya waa amniga war sidii muxuu ahaa kacaanadu u shaqayn jireen diintan ugu shaqayno oo leen kacaankii wax badan buu lahay urur iyo lahay firfircoonidii sameeyo war inoo ilaaliyo magaalada nin walba dhankaa ka ilaali moogta xaafadda la ilaaliyo kuwa laga soo qabto sharwalayaasha la soo qabto khamrida kuwa soo galaya ha la qabto waxaan ku soo gabagabeynayaa magaaladahan ilaashano ilaahay baa ina barakayn wabillahi tawfiiq